السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحران جنال كمركلة سودة واده أدي هذا أمهات سنتهين maanta waa isniin 16 bishii lixaad ee June sanadka 2025 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago maamulka Trump oo doonaya in uu xanibaad ama travel ban uu ku soo rogo wadamo kale oo gaaraya ilaa iyo 36 wadan oo u badan wadamo Afrikaan ah maxay yihiin waxyaabaha laga doonayo inay sameeyaan si ay uga badbaadaan xayiraadan oo guud ahaan lagu soo rogo dadkoodu aysan Mareykanka imaan karin ama qayb ahaan lagu soo rogo la xanibo qaar kamid ah viisayaasha ay wadanka Mareykanka ay ku imaan karaan arimahaasi ayaan idinla wadaagayaa dad fara badan arimaha qaxootiga ay wax iga soo weydiinayeen maxaa ka jira iyo Trump oo sidoo kale hakad galiyay in dadka sharci darrada laga soo qabqabto meelaha beeraha maqaayadaha iyo waliba hoteeladana waan idinla wadaagaya balse marka hore soo dhawaada in Trump travel ban inuu soo rogay 4 bishan oo 19 wadan oo Soomaaliya ay ku jirto 12 gabi ahaanba la diiday in Mareykanka immigrant ama non immigrant ay ku yimaadaan oo Soomaaliya ay ku jirto ama qaxooti ahaan ama visa ahaanba ku yimaadaan 7 wadan la adkeeyay in ay viisayaasha ay Mareykanka ay ku imaan karaan haddana maamulka Trump la helay waraaq wasaaradda arrimaha dibadda ay u dirtay ku dhawaad 36 wadan oo u badan Afrikaan isla markaana wadamadaasi la leeyahay waxaad wajihi kartaan in shacabkiina guud ahaanba in Mareykanka yimaadaan laga mamnuuco amaba qayb ahaan in Mareykanka ay soo galaan oo fiisayaasha ay ku imaan karaan la xadido haddii aadan ka soo bixin tillaabooyinkan dowladda Mareykanka ay idin soo jeedinayso haddaba liiska wadamadaasi xayiraada ama travel banka uu saameyn karo qayb ahaan ama si buuxda uu saameyn karo waxaa kamid ah 25 wadan oo Afrikaan ah qaar kamid ah jasiiradaha Caribbean-ka wadamo ku yaala bartamaha Asia iyo dhowr wadan oo ku yaala Pacific Island Nationska wadamada la yiraahdo marka waraaqdan waxaa saxiixay wasiirka arrimaha dibadda Marco Rubio sabtidii ayaana waxaa loo diray diblomaasiyiinta ama safiirada dowladda Mareykanka wadamadaasi u fadhiya muddo 60 maalmood ah ayaana la doonayaa in waxyaabaha Mareykanku uu ka doonayo ay uga soo jawaabaan haddii kale wadanka Mareykanka laga mamnuuci karo dadkoodu inay imaadaan si buuxdo amaba qayb ahaan laakiin arbacada oo 18 bisha ku beegan 8 subaxnimo waqtiga Mareykanka ayaa laga doonayaa in qorshahooda oo hordhaca sida ay doonayaan in ay uga soo baxaan waxyaabahan Mareykanku uu ka doonayo in la doonayo in qorshahooda hordhaca 8 subaxnimo arbacada soo socota ay soo gudbiyaan oo 18 bisha haddaba wadamada travel bankan uu si buuxda inuu u saameeyo ama qayb ahaanba uu u saameeyo la filayo maxaa kamid ah waxyaabaha la yaab kale oo maamulka Trump uu ka doonayo wadamadan waxaa kamid ah in shuruudaha laga doonayo waxay yihiin in wadamadan ay ogolaadaan in dadka Mareykanka laga masaafurinayo oo aan wadamadooda u dhalan in ay qaabili karaan waxay leeyihiin dadka anagu aan iska soo masaafurinayno oo wadamadooda ay diidaan waa inaad ogolaataan inaan wadamadiina aan u soo masaafurin karno waxyaabaha requirementiga ayay ku jirtaa waxaa sidoo kale kamid ah in ay ogolaadaan inay galaan heshiiska Mareykanka uu kula jiro Canada oo la yiraahdo safe third country oo macnaha qofku soo tahriibaya haddii wadamadan mid kamid ah uu soo marayo oo wadankaasina uu amaan yahay in uu iska dhiibi karo uusan Mareykanka u soo gudbi karin macnaha hadda Mareykanka iyo Canada ayuu heshiiskan ka dhaxeeyaa macnaha qofka hadduu Canada ku soo hormaro waa inuu Canada iska dhiibaa because Canada waa wadan amaana hadduu Mareykanka ku soo hormarana waa inuu Mareykanka iska dhiibaa laakiin labada wadan midka aad ku soo hormarto haddii asylum ama magangelyo inta aad ka dalbato ayadoona wali lagu siinin aad wadanka kala aado ama Canada ama Mareykan midkood wadankaasi waxa uu kugu soo celinayaa wadanka aad ka tagtay sababtoo heshiiskan ka dhaxeeya oo safe third country agreement la yiraahdo oo labada wadan ay kala saxiixdeen marka waxa ay leeyihiin Trump waxa uu leeyahay horta wadamadiina waa inaad ogolaataan in dad wadankiina aan u dhalan oo Mareykanka laga soo masaafuriyo la idin keeni karo iyo inaad heshiiskaas ogolaataan oo wadamadiina qofka soo tahriibaya haddii wadamadaasi mid kamid Afrikaanka uu soo marayo waa inuu iska dhiibaa wadamadaasi haddii ay ammaan yihiin marka arintaasina waxay tahay waxyaabaha Trump uu doonayo in wadamadaasi ay ogolaadaan marka waa arin la yaab leh oo maamulka Trump uu ka doonayo wadamadaas haddaba wadamadan maxay kala yihiin
25 wadan oo Afrikaan ayaa ku jirta waxa kamid ah wadanka Angola ayaa ugu horeeyo waxa kamid ah wadanka la yiraahdo Antigua and Barbuda wadamo badan oo magacadooda weligiin aadan maqlin ayaad ku arki doontaan jasiirada ayay u badan yihiin inta badan wadanka Benin ayaa kamid ah Afrikaan Bhutan dhinaca Asia ayuu ku yaalaa wadankaasi Burkina Faso waa wadan Afrikaan Cape Verde waa Afrikaan waxa sidoo kale ku jirta Cambodia oo Asia ku taala waxa kamid ah Cameroon oo Afrikaan Democratic Republic of Congo oo qaaradda Afrika ku taala Djibouti ayaa kamid ah wadamadaasi Dominican Republic ayaa kamid ah Ethiopia waa ay ku jirtaa Djibouti Ethiopia Egypt saddexdaasi wadanba waa ay ku jiraan waxa sidoo kale ku jira Gabon oo wadan Afrikaan Gambia ayaa sidoo kale ku jirta Ivory Coast ayaa ku jira wadanka Kyrgyzstan ayaa ku jira waa dhinaca Asia Liberia waa Afrikaan Malawi waa Afrikaan Mauritania waa Afrikaan Niger waa Afrikaan Nigeria sidoo kale waa Afrikaan jasiiradan Saint Kitts and Nevis ayaa la yiraahdaa waa Caribbean-kan Saint Lucia sidoo kale waa dhinacan jasiiradahan Caribbean-ka sidaan filayo waxa sidoo kale ku jirta Sao Tome wadanka la yiraahdo ayaa ku jira Senegal ayaa ku jirta South Sudan ayaa ku jirta oo haddaba la leeyahay dad ayaa la geeyay aan wadankooda u dhalanin oo Mareykanku u masaafuriyay oo wadamo kale ka soo jeeda wadanka Suuriya ayaa ku jira Tanzania waa ay ku jirtaa Togo waa ay ku jirtaa Tuvalu waa ay ku jirtaa waa jasiirada iyaduna Uganda waa ay ku jirtaa Vanuatu ayaa ku jirta Zambia ayaa ku jirta Zimbabwe ayaana ugu dambaysa marka dhammaanba wadamadaasi oo 36 wadana marka lagu daro 19 wadan oo horay Trump ugu soo rogay travel bank qayb ahaan iyo waliba si buuxda oo Soomaaliya ay ku jirtay 55 wadan ay isku noqonayaan wadamada travel bank laga yaabo inuu Trump saameeyo marka shuruudaha laga doonayo hadii 60kaasi maalmood ay wadamadan ku soo dhameystiraan waa laga yaabaa inay ka badbaadaan travel bank laakiin hadii ay ku soo dhameystiri waayeen oo heshiisyada Trump uu ka doonayo ay ogolaan waayeen macnaheedu waxay tahay travel bank uu saameynayo ama sidoo kalena si buuxda uu saameyn doono ama qayb ahaan uu u saameyn doono travel bank hadda Trump uu soo rogay waxaan ognahay 4 bisha in uu 9 bisha dhaqan galay uu hadda jiro dhinaca kale dad fara badan ayaa cilmiga arrimaha qaxootiga maalmahan kama hadashidahayay warkan iga qaata waxaan ognahay travel bankan inuu saameynayo non immigrant and immigrant marka immigrant-ka waxa soo galaya dadka qaxooti ahaan Mareykanka ku imaan lahaa iyo sidoo kalena dadka lottery ahaan ku imaan lahaa kuwa non immigrant-na waa dadka viisayaasha ama waxbarasho ama shaqo ku meel gaara ama dalxiis ku imaan lahaa marka waxaan idin sheegayaa Trump intuu joogo ka sabra in qaxooti ahaan Mareykankan aad ku imaataan labada sano dambe ama sanadku dambe wax isbedeli doona ma ogi laakiin labadan sano u horeysa haddaad qaxooti ahaan Mareykanka doonaysid inaad ku imaato iimaankaada iska dhuuqso group 5 lacagihii akoontiyada idinku jiray hadii aad u baahan tihiin kala baxa horta group 5 wax la yiraahdo ma jiri doonaan inta uu Trump joogo warkaasi war cad waaye inaad qaadataan ayaan filayaa qaxooti iyo group 5 labadaba intuu Trump joogo siiba labada sano u horeysa ama sanadka u dambeeya ama laba sano u dambeeysa hadii wax isbedelaan wayna arki doonaa laakiin labada sano u horeysa in qaxooti ahaan ama group 5 aad Mareykanka ku imaataan gabi ahaanba waa inaad ka sabartaan arrintaas waxaan filayaa arrin cad inay tahay dad fara badan arrintaas ay soo weydiinayeen sidoo kale arrimaha masaafurinta labada toddobaad u dambeeyay aad ayaa dadka loo qabqabanayay Trump marka maalin dhaweyta markii ay soo baxday in beeraha ku yaala California dad soo galootiya iyo ciidamada ICE ay ku bursanayeen hadda waxa uu ICE ku amray inay xakad geliyaan dadka ay ka soo qabqabanayaan meelaha beeraha maqaayadaha iyo waliba hoteelada waxa yiri barkuwaas horta u kaadiya dadkaasi xogaa shaqo fiican ay hayaan marka lama ogo inta hakadkaasi uu jiri doono laakiin hadda ciidamada waxa uu ku amray beeraha maqaayadaha iyo hoteelada inaysan dad ka soo qaban laakiin goobihii shaqada la iska soo qabanaya waxa la isugu maxkamadihii ayaa la isku sugayaa hadda waxaan arkayay meelaha hilibka laga shaqeeyo lo'da Omaha Nebraska maalin dhaweyta 80 qof ayaa loogu tagay meel hilib ay ka shaqeynayeen waa kuwan fiiri cuntooyinkii ay wateen oo ay cunaan inay ugu soo tala galeen meeshii cuntooyinka lagu cunayo cafeteriada waa kuwan iyagoo dhooban laakiin 80kii qof hal mar ayaa halkaasi laga watay marka ninkii Trump hada waxa uu leeyahay hakad ayaan gelinaynaa dadkan ka soo qabqabanayno beeraha maqaayadaha iyo waliba hoteelada lama oga inta hakadkaasi uu jiri doono marka dambe uu dhihi doono iyagana hal lagu daro laakiin hadda arrintaasi waxa uu ku amray ciidamada ICE inaysan ku degdegin oo ay joojiyaan marka arrimahaasi travel banka ayaan rabay inaan idila socodsiiyo oo 36daasi wadan loo qabtay muddo 60 maalmood oo gudahooda shuruudaha uu Trump ka doonayay inay soo fuliyaan hadii kala travel bankaasi uu saameyn doono
marka aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta arrimaha qaxootiga warkeeda waan cadeeyaan filaya dad fara badan su'aalaha ugu badanayay Trump inta uu joogo ma u malaynayo in qaxooti ahaan ama group 5 Mareykanka lagu imaanayo waxa uu doonayaa horta kuwa wadanka joogo intii uu masaafurin karo inuu masaafuriyo markaas kadib uu yiraahdo hadda waa laga yaabaa in marka qaxooti loo ogolaado in Mareykanka yimaadaan mamaradii garsoorayaasha ka soo baxay federaalka waxaas Trump dhigma uusan u dhigin ninkan waa nin howshiisa wata marka haddii wax kale ay soo kordhaana waa idila soo socodsiin doonaa laakiin haddii lacago kugu jireen group 5 oo bangi aad ku shubtay oo u baahan tahay iska isticmaal ma malaynaya group 5 inta Trump uu joogo in dad lagu keeni doono maamulkii hore Biden ayaa bilaabay aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sidaayo nabadgelyo